marwadii caqliga badnayd walaalahayo ku soo dhawaada qisadan cajiibka ee aan aniga ahaan u diiwaangeliyey mid ka mid ah qisooyinka ugu qurxoon ee aan akhriyey nin qoraa ah ayaa isagoo fadhiya qolka uu had iyo jeer wax ku qortay gurigiisa warqadii qalin soo qaatay wuxuuna qoray sida tan sanadkii aynu ka soo gudubnay waxaan galay qaliin weyn oo aan bilo badan dhakhtarka ugu jiray sariirtana u saarnaa sidoo kale sanadkii tegey waxay da'deedu gaadhay 60 sano aabahayna wuxuu geeriyooday isla sanadkii tegey wiilaan dhalayna wuxuu ku dhacay imtixaankii uu ku qalinjabin lahaa isla markaana uu ku qaadan lahaa shahaadada kuliyadda caafimaadka kadib waxbarashadii ayuu ka haray shil baabuur oo la soo gudboonaaday awgii wuxuu warqadiisii uu qorayay ku soo gabagabeeyey sidan sanad adag oo aan dhib badan kala kulmay ayuu ahaa sanadkii hore aynu ka soo gudubnay kadib warqadii wuxuu kaga tegay miiskii uu ku dul qorayay xaaskiisii ayaa soo gashay qolkii waxayna aragtay warqadii oo miiska saaran waxayna akhriday warqadii uu ninkeeda qoray kadibna warqad kale ayay soo qaadatay erayo ayayna ku qortay ninkeedii ayaa soo laabtay oo warqadii akhriyey sidan ayayna u dhacaysay sanadkii aynu ka soo gudubnay waxaad ka bogsootay qaliin weyn oo laguugu sameeyey oo aad muddo dheer sariirta u taallay cimrigaaguna wuxuu gaaray 60 sano welibana adigoo caafimaad qaba waxaad heshiis la gaadhay shirkad weyn oo buugaagta soo saarta si aad ugu madax banaanaatid inaad buugaag qoratid aabbaha wuxuu noolaa 85 sano muddadaa dheer uu caafimaad qabay qofna muusan dhibin wuxuuna geeriyooday isagoon xanuun iyo dhibaato toona ku rafaadin wiilkaaguna wuxuu ka badbaaday shil baabuur oo sababi lahaa inuu dhinto wuuna caafimaaday isagoo aan dhaawac weyni gaarin sidoo kale muu curyaamin waxay ku soo gabagabaysay qoraalkii wuxuu ahaa sanad aynu ka soo gudubnay dhibaatooyin badan oo aanu la kulannay ilaahay ayaa mahaddaasi iska leh sidaa darteeda allah wuxuu inaga mudan yahay had iyo jeer inaan uga mahdino nimcadiisa